halka markaan imanayay muqdisho waxaan u imi scholarship waxaan galay imtixaankii ciidanka loo qaadiyay leeli sarkaalka ee dalka Uganda waxaa diyaaradii lagu soo kala qoray waxa ii soo baxday 2 maalmood waxa horeysay diyaaradda ciidanka xooga dalka Soomaaliya ee scholarship aan ku jira u baxay dalka Turkiga balse waxaan raacay wadadii aan anigu ku hamiyay ee fakarka waxa xaqiiqatan lama hilmaamaan in aynu u dhownahay oo saaxiib lanahay geerida taas baa lama hilmaamaan balse waxaan dirs lanahay haddaan nahay ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed guusha markaasna waa dardargelina waxaan aaday Mareykanka markaan Mareykanka tagay oo wax bartay waxa la yaabay nin SNA ka socda oo Mareykanka taga wax barta oo buundo fiican ka keena waxay leeyihiin ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxa laga gudbiyaa report qaldan waxa jira ma ahan aqoon ma lahan markaas ana meesha aan tagay aan buundo fiican ku baasay ayaa hadda waxa lagu barbaariyay oo la ii sheegay inaan Mareykanka iska joogo aan baxsado ana waxaan dhahay ma baxsanayo aniga waxa ay soo diray wadan waxa ay soo diray SNA familkeyga iyo qoyskeyga mi soo dirin soo waxaan matalayaa SNA waxaan ka shaqeynayaa sumcadaas SNA waxaan calanka u qaatay inaan dalka difaaco ma aha inaan difaaco qoyskeyga nafsadeyda waxaan go'aansaday anoo xaaladda sheerta ku jirto og inaan soo laabto wadanka ku soo laabto shaqeeyo stiil waxaan diyaar u ahay inaan sheerjito u dhinto waxaa farxad noo ah inaan maanta taliyaha hortiisa ka sheegno wax walba oo aan tabanayno saraakiishii hore oo naga horeysay markaan wareysano minister gaal wuxuu ku leeyahay markaan xidigla ahaa mas'uuliyadaasaan hayo waxay nagu qaadatay annagoo infantry soo baranay inaan ku dabaqno waxay aan ka soo barnay shibilnimadeena soo baranay ama jaamacadaha shibilka uga soo baxnay oo maamul xafiisyada hoose ah inaan ka shaqeyno annaga oo rabnay markaan ka soo baxno kuliyadaha sida hadda la yiri saraakiil badan yimid oo kale ay ka soo baxaan inaan tagno furimaha